ماجد بن محمد بن رشيد المختوم oo u dhalay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra'iisul wasaaraha dalka Imaaraadka Carabta oo dadka sida weyn uga ololaya aqoonsiga Somaliland ayaa mar kale bogiisa eegaysa mid Twitterka ku baahiyay qoraal uu ku cadeynayo sida uu caalamku ugu soo bandhigi lahaa waxa ay 30 sano iyo dheeraad ay Somaliland jirtay qabsatay waxa uu sheegay in Somaliland ay la timi adkaysi isla markaana ay dhisatay heykal dawladnimo oo dhameystiran aynu isxasuusin ee Somaliland waxa ay la timi guulal taariikhi ah oo ay dadku iska indhatirayaan laakiin anigu waxa aan halkan u joogaa in aan toosh ku iibiyo guulahaasi ay Somaliland gaadhay inta karaankayga ayuu yidhi Maajid. Imaaraadka Carabta ayaa marka la isku daro wadamada Carbeed kasoo dhex booday waxaana Sheekh iyo Shariif ba u ololeynayaan sidii dalka Somaliland oo mar kale dunida uga heli lahaa aqoonsigii uu lumiyay 1960kii dhawaan shirkadda DP World oo gacanta ku haysa maamulka dekedda magaalada Berbera ee Somaliland ayaa iyana sheegtay inay ka shaqeyn doonto sidii caalamka uga dhaadhicin lahayd sidii loo aqoonsan lahaa Somaliland.